Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahey qaaligo janalka ku xiran meel walba ay joogtiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada waa walaashin sacduushka oo kana mar kale idin wada video cusub walaalaha cusub waxaan leeyahay soo dhawaada subscribe noo taabta gambareelkana furta walaalaha noola joogin waxaan leeyahay idinkana soo dhawaada like-ta ka iloobin asxaabtiina noo share garay maanta waxaa sameysanaynaa baasta bashameela waxa aan haysto ujeedin waa muskiile hilib geele waan soo shiiday waan soo kariyey asxaabe waa ujeedin hilibku waa soo shiiday si fiican waa u soo kariyey waxaan haysto waa 2 xabo baradho oo mid yar ay tahay midna ay weyn tahay waxaan kala haysto 3 xabo karooto hadhow geedkaasaan ku hoolan doonaa waxaan kala haysto waa basal 3 xabo basal oo si yar yar aan u soo jarjaray digsigii aan ku dalacan lahayn iyo saliidi insha Allah hadda dhankii dibka aadi doonaa waa dalacaneynaa nala socda asxaabteyda like-tan ha ka iloobin asxaabtiina noo share garay asxaabey waa kan asxaabteyda hadda waa soo dalacay basashii iyo saliid badan ma ahayn wax yar oo saliid badan ma rabin hadda waxaan ku darsanaynaa hilibkii waxaan rabaa hilibkii iyo basasha inaan xoogaa yar isku shiilo sidoo hadhow hilibkii iga dhimane hilibka aan haysto waan iskiilo cambaara rabaa inaan hadda qalaabiyo saliidda ma badna waa ujeedin suugadan saliid badan looma rabo angaga laga rabaa angag insha Allah saliidii basasha waxaan rabaa si fiican inaan u dhex geliyo hadda waxaan ku darsanaynaa yaayada kan yar oo cagaarka bisaan ka gooyay oo waxa oo kale kadib waa soo shiiday si fiican u dhaqay waa soo shiiday miraha iyo qobka midna kama qaadin hadda yaraan rabaa inaan ka filtareeyo mirul baa suuga karinayna saasaan yaayada yeeshaa kan kore bisaan ka gooyaa waa soo dhaqaa kadib qalaadadan geliyaa markaas kadib waa iska filtareeyaa insha Allah asxaabteyda hadda waa kan yaayadii waa filtareynayna yaayada markaas aan yeeshid maasha Allah aad u fiican tahay waayo wixii dhan waa kala soo baxday laakiin markaa miraha ka qaadid iyo markaan ay fiican tahay suugadana markaan aad ugu fiican tahay aniga wax shiishidana isticmaali doono yaanyada aad u badan aan isticmaalayo mirihii iyo qubkii wax dhan meeshay ku wada jiraan si fiican ugu shandheynaa waxaan rabaa miraha bas inaan reebo waxyaabaha ku jira dhan aan ka baxsado qashinkii dhan waa kana asxaabteyda waa ujeedin hadda kasta kala kusoo shubanayna waxaan rabaa suugadan inaan dhaqsi aan soo kala tuuro oo suugada qof walba uu yaqaanaa suuga bas karootada ay idin tusinaa sida loo hoolayo waayo karooto dheer looma rabo ama karooto oo yacni soo taagtaagan bahalka karooto holka haddii haysato waa ku hoolan kartaa baradhada iyo karootada haddii kalena bahalkan aniga isticmaal haddii haysatidna waa ku hoolan kartaa insha Allah wax shiishiidana kuma darsanayno saas oo la socda asxaabteyda yaanyada igu filan yaanyo badan ay haystaa
asxaabi hadda waa kana waxaan haysto waa 4 xabo kaarood bahalkan aan u isticmaali doonaa si fiican aan usoo dhaqay qubka korona waa kasoo qaaday waxaan rabaa meeshaas inaan u isticmaalo si yar oo dhuudhuuban oo khafiif ay igu sameynaysaa baradhadii karootada waxaan rabaa kaas inaan kusoo hoolo karootada si dhuudhuuban oo qurux badan u jarjaraysaa oo khafiif karitaan badan xitaa kaaga baahanayo ujeedin bahalka karootada lagu hoolo hadaa haysatid oo ku hoolan kartaa asxaabteyda midkaad aniga isticmaala bocor cadaha lagu hoolaa bocor cadaha sida fiinaha loo jaro waxaa loo isticmaalaa baradhadan ayadaa ku hoolanaynaa إن شاء الله أصحابتي دي لسه بردي كروتة كنا كسو هولان دونا كاد جائز كسو دي كسو دياريو هاي إنه ملنا إن شاء الله أصحابتي هذا واكنا دكسيها ومعني ووجدين سو كركراي هذا يروح أقدر سنينا كروتة دي بردي ونسو هولانيني كروتة دي آدو بدن بردد وح بدن معهن baradhadan karis badan xitaa ma rabto iyo karoodka waa ay si khafiif u jarjaran yihiin karitaan badan xitaa kaama qaboonayaan suugada aad ay indhaha ugu qurux badan tahay waa ujeediin hilib iyo karootin yahay bis ay waay baradho suuga angegan oo qurux badan ka rabaa inay ka soo baxdo insha Allah asxaabteyda waa kan aan kusoo laabtay digsigii hadda biyihii uu soo gursaday waa ujeediin waxaa haysto waa kabsar iyo toon dabka xoogaa waa ka gaabiyey maraq digaagna awal soo darsaday iyo wax yar cusbe waxa digsigaas igu saarana waa baastadii aan karsan lahayn suugada wili biyo yar ay leedahay biyaha dhan aan rabaa inaan ka gursiyo oo suuq qaleel ay noqoto hadda waxaan haysto waa barbarooni hal xabo barbarooni si yar aan soo jarjaray barbarooni kala nooc ah haysto ku darsan kartaa hadda waxaan ku darsan wax yar oo paprika wax yar oo badnayn suugada aad ay u carfaysaa maanta maasha Allah way dheelatiran tahay hadda waxaan ku darsanaa wax yar oo heel wax yar oo badnayn waa qaadada fiideeda insha Allah suugada warkeeda intuu ku haray hadda waxaan rabaa baastada inaan soo kariyo oo suugada dejiyo insha Allah suugada degsanayna waxaan rabaa baastada inaan ku soo rijiyo dabka oo suugada oo soo kariyo asxaabteyda baastada soo karsana insha Allah isku soo laabanayna baastada isticmaali doona idin tusina baastada waatana xil waa ku qoran waa baasta macaroni
baas makaroonidan ninkii yaqaana ninkaan aqoonin baastada makaroonida cididaa la dhahaa amba tubada baastooyinka kale way ka dheer tahay. tana loo isticmaalaa bashameelada insha allah. hadda suugada waa iska dejinaynaa. baastada rabaa inaan soo kariyo 11 daqiiqo bis ay saarnaanaysaa. daqiiqadan u qabanaa daqiiqadaas rabaa inaan kusoo kariyo sikin ugu madaraayay insha allah asxaabtayda. socod wanaagsan baastada markaa soo kariyo inoo balanay. asxaabtayda waa kan waa soo laabtay. waxaan sameysanaynaa bashameeladii. waxaa dabkii saaran waa digsi waa ujeediin. baastadana waa soo kariyay maskiida ruucan soo karsadaan qiyaasteeda qiyaastaada taqaanid. hadda waxaan haysto waa liitar iyo 1 galaas. liitarka meeshaas uu ku egyahay 1 galaas raacsiisan caano booro waa isticmaali kartaa. caanaha baakadaha ku jirana waa isticmaali kartaa insha allah. garaafaha cabir uu leeyahay. bashameelada lagama tago waa la ag taagnaanaa insha allah asxaabtayda. bahalkaana ku labanaynaa oo loogu talagalay doorshada in lagu garaaco. waxaan ku darsanaynaa waa 1 koob oo bur ah. koobkan qof walba yaqaano 1 koob isticmaali doonaa. caanaha iyo burkana waa isku shiidi kartaa. daarbid masaan waa yeelan kartaa insha allah. inaan soo shiido waa awooday laakiin waxaan isdhahay asxaabtaada ugu faa'iideey. waa labeena si fiican aan rabaa in loo labo lagama dheeraanayo. maanta oo dhan waxaan rabaa inaad labtid. si fiican ha loo labaa insha allah. asxaabay waxaan haysto waa blue band waan soo dhalaaliyay. sidii cadday waa isticmaali kartaa. subag caadina waa isticmaali kartaa insha allah. dhammaan isticmaali doona wax yar ka reebi doona. waxaan ku darsanaynaa waa sactar. waxaan kaloo ku darsanaa waa paprika iyo filfil iyo xawaashi kale isku dardaray insha allah asxaabtayda. xoogaa markay noo soo qandacdo aan rabaa inaan idin soo laabto insha allah asxaabtayda. waa kan asxaabtayda oo kusoo laabtay bashameeladii saan ay u eg tahay mana ka tagin. maanta oo dhan waa labaayay. hadeer way noo dhowdahay. cabaaray dabka saaran tahay asxaabtayda. maanta oo dhan waxaa la rabaa inaad ag taagnaadid oo bahalkan aad ku labtid. saana laga rabaa kareem camal inuu noqdo. waxyaabihii dhanna waa kusoo wada daray xawaajigii filfishii iyo blue banki waxyaabihii dhan waa kusoo wada daray. hadda saani diyaar noogu tahay. saana la rabaa inay kusoo baxdo. waa ila fahanteen ayaan rajeyn asxaabtayda insha allah. hadda waxaan soo diyaarsanaynaa baastadii iyo weelkii aan ku ridan lahayn iyo suugadii insha allah. waa isku soo laabanaynaa. asxaabay waxaan haysto waa kana weelkii ofinka ku shan lahaa. saxankan dhaladaan haystaa. baastadan waa soo kala goostay. qayb intaa kusoo shubay qaybna saxan kale igu jirtaa. waxaan kaloo halkaas aan ku haysto waa suugadii. baastadan waxaan rabaa burkii caanihi hadda aan soo karinayay inaan xoogaa ku daro oon ku labo. xoogaan ku darsanaynaa xoogaana waa dhiganaynaa. ma adko waa ujeediin aadna uma jilcano dhexdhexaad waa insha allah. inaa fahanteen ayaan rajeynaa. baastadii waxaan isku qasanaynaa iyo bashameeladii
si fiican markaas ku dhex geliyay saxanka hoos u dhigayna saxankan wax yar oo saliid soo mariyay. baastada saan ayana hoos aan marineynaa. saxanka si fiican ugu jimeyneyna. hadda waxaan ku shubaneynaa suugadii. baastada dhammaan aan rabaa inaan ku daboolo oo meelna ay ka fidnaanin. foornadana waa iisii daaran tahay 180 aan geeyay insha Allah. foornada kor iyo hoos ugu daareynaa ilaa iyo waxay ku jiraysaa 15 daqiiqo ilaa 17 daqiiqo insha Allah si ay ku karto aan arkaynaa. laakiin qiyaas ahaan 15 daqiiqo ka badan ma saarnaanayso. had suugada dhammaan oo ku wada daboolnay waa ujeediin. hadda baastadii caddeeda rabaa inaan soo qabto aan haddana kor ugu shubo. qaybtan saan ugu baxnay haddana baastadii kale aan kor ugu shubaneynaa. haddaad jeceshahay jiis waa ku darsan kartaa, haddaadan jeclayn waa iska dhaaf kartaa. aniga jiis ma isticmaali doono insha Allah. waan ku celcelinaa wax yar waa ku riixriixa. waxaan rabaa baastadii iyo suugadii inay isku dhagaan. jinna waan ka dhigi doonaa meelaha ay u badan tahay dhammaan aan rabaa inaan kasoo durjiyo. hadda waxaan kor ugu darsanaynaa bashameeladii. dhammaan kor ugu shubaneynaa. foornada gelinaynaa wax yar markay noogu jiraato oo kasoo bixinaa. ukun iyo caano rabaa kor inaan ka mariyo. aniga jiis ma isticmaali doono asxaabteyda. adiga haddaad jeceshahay jiis kor waa ugu shuban kartaa, laakiin aniga jiis ma isticmaali doono. markii xoogaa ay 5 daqiiqo kale ay ku jirto oo kor ay ka engegto waxaan rabaa bur iyo ukun iyo caano yar inaan mariyo. kadib waan ku celinaa. hadda 7 daqiiqo kale ay ku jiraanaysaa insha Allah. markay kasoo baxdo sida ay kusoo baxdo oo idinla soo wadaagi doonaa asxaabteyda. asxaabteyda waa kana waa kasoo saaray 15 daqiiqo bas ay ku jirtay. 180 aan u geeyay insha Allah. waa ujeediin maasha Allah wayna qalalan tahay. hadda waxaan yeelaynaa soo guranaynaa insha Allah. isku soo laaban doonaa asxaabteyda. la socod wanaagsan. maasha Allah asxaabteyda maxaa ka dhahdeenay qada dhameystiran. maasha Allah baastaan aad ay u macaan badan tahay. haddaad ka hesho like noo saar asxaabtaadana la wadaag. commentiga noogu soo qor fariin haddaad noo watid noona share gareey. meel walba joogtay waxaan idin leeyahay nabad iyo caafimaad ku waara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.